السلام عليكم وأنيقو walaalkan Cabdimajid habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan kaydin tahayba muuqaalkeenan maanta waxaynu kaga hadli doonaa xogo dhowr ah oo laga yaabo inaanad ka hayn amaba ka aqoon shirkadda caanka ah ee aynu wada isticmaalno taleefanadeeda ama moobiladeeda ee lagu magacaabo Samsung ku soo dhawow inta aynaan mawduuca u guda gelin waxaanu kaa codsanaynaa inaad kanaalka subscribe ta saarto si ay nagu noqoto dhiirigelin shirkadda Samsung waxa la aasaasay sanadkii 1938 halka shirkadda Apple la aasaasay sanadkii 1977 waxayna ka horeysay shirkadani muddo dhan 40 sano shirkadda Apple waxaana shirkaddan hindisay ama aasaasay nin lagu magacaabo Lee Byung-chul oo ahaa nin beerola ah ama beerta qodin jiray shirkadda Samsung ugu horreyntii waxay ahayd mid wax soo saarkeedu yahay ama shaqadeedu tahay mid soo saarta dhanka khudaarta oo ay u dhoofin jirtay dawlado badan oo ku yaala qaaradda Aasiya xogta saddexaad sanadkii 1977 ilaa 1979 shirkadda Samsung waxay si lama filaan ah ugu soo biirtay suuqyada gada ama iibiya electronicska oo ay ugu baahday si ballaaran xogta afaraad waxa magaca shirkadda Samsung macnihiisu noqonaya saddex xidigood taas oo uu la jeeday aasaasaha shirkaddani in ay noqoto shirkaddani mid u ifta ama uga duwan shirkadaha caalamka sida xidigaha ugu ifaan cirka xogta shanaad ma ogtahay daawadayn shirkadda Samsung ayna kaliya ka koobnay samaynta moobilada iyo electronicska balse ay leedahay qaybo kale oo ay ka mid yihiin qaybaha hoteelada caafimaadka iyo dhismaha iyo qaybo kale oo tiro badan xogta lixaad sanadkii 2016 shirkadda Samsung waxay ahayd sanad ay hareeyeen ama hareysay dhaqaale xumo kadib markii ay soo saartay moobilka Note 7 moobilkan oo qarxayay ama uu sameeyay baytariga moobilkan qarax sabab la'aan ah arrinkaas oo gaaray ama keenay xitaa in ay ka digaan dawladaha adduunka qaar xogta toddobaad diyaaradii ugu horeysay ee dagaal ee lagu magacaabi jiray KF-16 ee uu lahaado dalka koonfurta Korea waxa sameysay oo fikradda sameynteeda lahaa ama sameysay shirkadda Samsung xogta sideedaad imiriga ama xusuuskaydiyaha yar ee ku jira moobilada iPhone-ka ama moobilada ay sameysay shirkadda Apple waxa sameysay shirkadda Samsung xogta sagaalaad waxay shirkadda Samsung sanad kasta ku bixisaa dhaqaale dhan oo gaaraya 11 bilyan oo dollar kaliyaata 60,000 oo shaqaale balse 60,000 ee shaqaale ay qaabilsan yihiin horumarinta iyo u fakiridda wax cusub oo ay kaga duwan yihiin shirkadaha kale si ay u soo saari lahaayeen xogta tobnaad ee ku dambaysa dhismaha ugu dheer adduunka ee ku yaala Imaaraadka gaar ahaan Dubai ee lagu magacaabo Burj Khalifa ay shirkadda Samsung ay ka qaadatay qayb weyn dhismihiisii ama dhisidiisii muuqaalkan maanta intaas inuu weeg yahay fadlan haddii ku cajibiyo muuqaalkan like saar si uu muuqaalkan u gaaro dad badan mahadsanid